Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa ay u soo yeertay war farxad leh oo ku aadan soo laabashada ciyaaryahanada qaar ee kooxdaas. Diego Jota ayaa Liverpool ay heli doontaa ciyaarta soo aadan, waxaana sidoo kale kooxda tababar bilaabay daafaca weyn ee Virgil van Dijk, kaasoo muddo garoomada ka maqnaa. Van Dijk ayaa la arkayay isagoo tababar xooggan sameynaya. Naby Keita ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Liverpool u soo laabtay, waxaana ciyaaryahankan diyaar u yahay inuu safto kulanka soo aadan ee Sheffield United Liverpool maalinta Axadda ay la ciyaari doonto. Keita ayaana in dhawaale aan ciyaarin ciyaarta kubadda cagta, waxaana ciyaaryahankan loo arkaa mid fure u noqon karta guulaha kooxdaas isaga iyo Jota oo hadda garoomada ku soo laabtay. Van Dijk waxa uu ka soo laabtay Dubai waxaana uu bilaabay tababarkii caadiga ah, isagoo tababarka markaan ku qaadanayay xarunta ciyaartoyda kooxda Liverpool ay ku qaataan. Diego Jota isagu waxa uu wacdaro ka dhigay bilowgii xilli ciyaareedkan, isagii Van Dijkna dhaawacii soo gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa ay tabtay, waxaana ciyaaryahan Virgil van Dijk uu yahay halbowlaha kooxda ay ku dhaqaaqdo. Naby Keita waxa ay Liverpool ugu baahan tahay maadaama kooxda uu ka maqan yahay kabtan John Henderson. Fabinho ayaa isna la filayaa inuu la mid noqdo Jota iyo ciyaaryahan Keita oo hadda tababarka kooxda ku soo laabtay. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ka diiriyay xaaladda dhaawacyada isdaba jooga ah oo ay la kulmayaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Liverpool 6 ciyaartoy oo kaliya ayaana xilli ciyaareedkan ka dhaawacmin, waxaana ay kaliyiin ciyaartoyda kale ah Mohamed Salah, Sadio Mane, Robertson iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Jones oo aan wax dhaawac soo gaarin. Naby Keita hadda wuxuu dhexda kula midoobi doonaa ciyaaryahan Thiago Alcantara iyo xidig kale ee Gini Wijnaldum, waxaana sidoo kale Liverpool dhawaan usoo laabtay ciyaaryahan Alex Oxlade-Chamberlain. Tababaraha Liverpool oo ka hadlayay soo laabashada ciyaartoydiisa ayaa sheegay in hadda dhoola caddeyn iyo farxad ay ka muuqato ciyaartoyda kooxda, maadaama ciyaaryahan Keita uu soo laabtay halka Van Dijk uu ku dhow yahay 3 wiil kadib inuu garoomada ku soo laabto. Waxaana taageerayaasha Liverpool Van Dijk u arkaan haddii uu yimaado in Champions League ay ku guuleysan karaan. Jota hadda waa loo baahan yahay maadaama weerarka kooxda kubadda cagta Liverpool aysan dhalin goolashii loogu baahnaa. Sidoo kale daafaca Virgil waxa uu qabtami doonaa difaacashada kooxda haddii uu soo laabto. Ciyaaryahan Matip ayaa muddo ka maqnaan doona garoomada, waana inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Jamaahirta Liverpoolna hadda way ku faraxsan yihiin Jota iyo ciyaaryahanada kale inay u soo laabtaan maadaama ay